waalid awlaad waxay jecel yihiin in la dhegaysto, they want to be heard. haddaad geyso vacation meesha ay ugu jecel yihiin adduunka, lacagta ugu badanna aad ku bixiso, laba shay baad isku khaldaysaa: good time iyo good conversation. waa laga yaabaa inay dhahaan wow, we had a good time, macnii meel qurux badan baana la geeyey, waxaan rabnana waa naloo gaday. laakiin having a good time, waqti qurux badan inaad la qaadato, oon uga jeedo meeshay rabaan inaad geyso, dalxiiskay rabaan aad geyso, hadiyaday rabaan aad u gaddo, iyo waxa la yidhaahdo good conversation. aabe iska waran, hooye iska waran, noloshaada maxaa ku cusub, adoo indhaha ka eegaya, way kala duwan yihiin. waxaan isku khaladnaa marka good time iyo good conversation. caruurtu haddaad la sheekaysan weydo, dad kalaa la sheekaysto. u fiirso instagramka, facebooka, ama meelahan kale baraha bulshada tiktoka, markay wax kusoo post garayaan, bal u fiirso inta qof ee xitaa aanay isku diin ahayn ee love u saaraysa, like u saaraysa, share garaynaysa, comment ka bixinaysa. maxay odhanayaan? oh my god, somebody is listening to me. qof kale ay dhegaysanaya. and then waxay ku kalifaysaa in ay waxyaabo badan post garayaan, waxyaabo badan post garayaan. why? they crave for attention. waxay raadinayaan attention. finally waxay arkaan qof jecel waxay sheegayaan oo love saaraya, qof la socdo oo la haysta waxay sheegayaan oo like saaraya, qof share garaynaya oo dadka kale la share garaynaya, qof comment garaynaya. attentionkaasi caruurta u jecel yihiin. sidaa darteed waalid waxaan rabaa inaan idhaahdo, inagu inaan lacag badan ku bixinno, oon meeshay jecel yihiin geyno, ilaahuma cimrada ahaato, iyo inaad la sheekaysato ood qalbigooda u dhacdo waa kala laba. waxaan rabnaa marka inaan samayno midda ah qalbigooda inaan hananno. janaalkan adaa lagu sameeyey waalid, waxaa la yidhaha waalid legacy channel. fadlan subscribe na share garee. maxaan ula jeedaa waalid inaan idhaahdo caruurta qalbigooda markaad hanato ayaad la sheekaysan kartaa. luqmaan qur-aanka waxaan arkaynaa aabe wiilkiisa tala siinaya, tilmaan siinaya, tusaale siinaya, u sheekaynayo, iyo ilmo dhegaysanaya. u fiirso, ilmaha hadalkiisa ma maqlayno. markay ahayd nebi ismaaciil waan maqlaynay markuu ku yidhi aabe xalay waxaan koriyooda anuu mindida xaggaa kaa saaray, waa kii lahaa aabe wixii laguu sheegay samee, yaa aba tifcal maa tu'mar, waa kii lahaa. laakiin luqmaan u fiirso, wiilkiisu talooyin siinaya. talooyinku waa maxay? waxyaabaha nolosha uu u baahan yahay inuu horu maro. ilaahay inaadan u shirki yeelin, ood world viewgaaga ilaaliso, ood shirkiga ka fogaato. world viewgaaga ilaali. innaga maanta waxaa ka khaldama da'yarta, waa waxa world viewga layidhaha. qofkii waa muslim, gabadhii xijaab bay xiran tahay, wiilkii khamiis buu xiran yahay, laakiin nadariyadda adduunka ka haystaan, their world view is different. waxaa laga yaabaa qofku inuu qayb ka yahay ideolojiyad ama falsafad, marka waxyaabahan ismka, feminism, liberalism, postmodernism, whatever. kadibna because of ideolojiyadda darteed uu lacagu bixinayo, ideolojiyadda darteed uu qofu nacayo, ideolojiyadda darteed uu qofu jeclaanayo, ideolojiyadda darteed uu dharkeeda u xiranayo. waxeedu world viewgii waa ka khaldamay. marka luqmaan wiilkiisa wuxuu leeyahy laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim. kadib luqmaan wiilkiisa wuxuu barayaa bulshadanu la nool yahay door baa kaga aadan. wanaagooda qayb ka noqo, dhawaaq iyo cod waxaad u noqotaa wanaagga. wa'mur bilmacruufi. xumaha iyo fitanka iyo fidnada iyo dhaqan xumadana mid mar walba ka hadla oo kasoo horjeeda noqo. wanha canil. u fiirsa suul wiilkiisa wuxuu sheegay, wuxuu leeyahay aqimi salaa, salaada ha ka teg. wuxuu leeyahay aabe waan dhiman karaa, waan maqnaan karaa, waan kaa mashquuli karaa, keligaa yaa waxaa doonta samayn kara. anigu micromanagement kuguma samaynayo, helicopter kuguma kortaagni. sidaa darteed aabe, inaha in takun mithqaala xabatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samaawaati aw fi lardi ya'ti biha allah. aabe meeshaa dooni xumaan ku samee, ama iphoneka bustaha la hoos gal, ama basementiga la aad, ama parkinka waxaa ku samee, ama meeshaa dooni ku samee. ugu dambayn cidda ku xisaabinaysa waa allah subxaanahu wa tacaala. accountability buu barayaa, responsibility buu barayaa. aayadaha kale waa ka odhanaya, markaad hadlayso sida qof weyn u hadlo, dhawaaqa dameerkoo kale ka fogow. markaad soconayso sida wax kibir badan oo sida maanta surwaalku ka dhacdhacaya wiilasha, they puff up their chest, qabsaale laabta, ha noqonin sida qof akhyaarayso. yacni waxaa u leeyahay tusaalayaasha quruxda badan buu siinaya wiilkiisa. waxaan marka suuraysan karnaa aabe iyo waalid wiilkiisa la talinaya iyo ilmo dhegaysanaya. waxaa meesha iga cad waalid. aabbahan luqmaan yidhaha wiilkan wuxuu maal gashaday qalbigiisa. wiilku marka wuxuu dhegaysanayaa aabihii. taladaa uu siinayo inagu maanan ogeyn. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala jeclaaday, inoo xafiday, inoo diiwaangeliyey. nebi maxamed sala allahu calayh wasalam inoogu soo dhiibay oo jibriil usoo mariyey. faqsusi lqasasa lacallahum yatafakkaruun. ilaahay wuxuu leey qisooyinkan uga sheekee si ay wax ugu qustaan. qodobka maanta aan ka hadlayo waalid legacy idagala hadlayo waxaa weeyaan, ilmaha waxay jecel yihiin cidda dhegaysata. sidaa darteed haddaad dhegaysan weydo, baraha bulshada waxaa jooga dad waxay qoraan, wuxuu dooni waxa noqdo, love saaraya, like saaraya, share garaynaya, comment siinaya. kuwaas ayaa kaa kaxaysan walciyaadu billah. mar kale fadlan la socda waalid legacy, subscribe dhaha si aad
هشان مقالة شير قرية سياد حسنات وهشان. والسلام عليكم ورحمة الله.